qaybta labaad waaye onchocerciasis. Intaas marka waxaa noogu eg qaybtii jirka guud ahaa. Markaan indhaha imaano, indhaha waxa ugu horeeya uu ka soo waa anterior uveitis ama inflammation caabuq ku dhacay interior uveitis-ka. Interior uveitis waxa kamid ah ciliary body oo kale iyo iris oo kale. Marka wax lagu garanaa waxa waaye meeshu shortness ka jiro pupil-kii irregular pupil. Waxa ugu horeeya lagu garanaa waa inuu jiro mataqaana uveitis inuu jiro iyo sidoo kale in markaad nalku ifiso RAPD uu jiro relative afferent pupillary defect oo pupil-kii meeshii la rabay inuu aruursamo ama fissamo mataqaana accordingly uusan u suubinin. Marka anterior uveitis waa calaamada ugu horeeya ee lagu arkaa. Waxaa kaloo lagu arkaa keratitis caabuq ku dhaca cornea, inflammation of the cornea. Nooca weliba punctate keratitis waxaa sidoo kale loo yaqaanaa snowflake opacities. Micnaha opacity sida barafka oo kale mostel u muuqato cadaan micnaha snowflake waa kana sawiro oo punctate qaybta kore oo dhan wada opacity ay noqonayso cornea. Waa calaamadaha lagu garto mataqaana onchocerciasis-ka. Intaas waxaa ku dheer chorioretinitis, inflammation of choroid and retina. Badanaa labada indhoodna wuu saameeyaa si bilateral ugu dhaca. Dhinacyaduna burburka ka soo bilaabo intiisa badan temporal fundus. Makulada markuu dambe ayuu burburka mataqaana soo gaaraa. Laakiin badanaa wuxuu ka soo bilaabaa temporalku ka soo bilaabaa funduska. Haddaba calaamadahaas in common marka la soo koobo. Number 1 waa eye disease, inaad aragto calaamado indhaha ah. Waa inaad aragtaa nodule maqaar ka soo hoos baxayo barar maqaarka hoostiisa soo buura meel ka mid ah. Waa inuu skin rash jiraa oo mataqaana maqaarka meel ka mid ah lagu arkayo skin rashes. Waa inuu depigmentation of skin sida maqaar haramcadka kale inuu leeyahay. Afartan calaamadood haddaad aragto iyo qofkii oo deegaan wabi u dhow ka imaade isla markaa waa inaad maskaxda ku haysaa inuu qofkan onchocerciasis ku dhici karo. Daweynta marka sidee loo daweeyaa marka onchocerciasis? Waxaa la siiyaa dawo la yiraahdo ivermectin. Ivermectin dawo si free ah lagu soo bixiyo waa badanaa WHO waa soo bixisaba oo waa loogu talagalay in cudurka lagu daweeyo looguna talagalay program dhan oo lagu cirib tiraaba jiro onchocerciasis. Dawadan ivermectin marka waxay dishaa macrophyllarida. Tirxidii yar ee macrophyllarida ee adult worm soo deynaa ay dishaa. Laakiin se tirxiga weyn adult worm badanaa ma disho. Marka ivermectin marka waxay marmar ayadana dhalisaa caabuq inflammation ay wadataa. Marka ka hortag ahaan waxaa loo raaciyaa prednisolone. Ama qofka haddii interior uveitis uu ku dhaco waxaa la siiyaa prednisolone si inflammation kaasna loo daweeyo inflammation ee ivermectin-ka dhalinaysa looga hortago. Waxaa intaas ku dheer waxaa la siiyaa doxycycline 100 ilaa 200 mg oo maalintii oo ilaa 6 isbuuc. Waxay saameyn ku yeelan kartaa tirxiga weyn adult worm-ka ay saameyn ku yeelan kartaa. Marka waxaa loo raaciyaa ivermectin-ka loo raaciyaa doxycycline 100 ilaa 200 mg. Hadda waxaa kaloo jirto dawo la yiraahdo soramin oo ayadana xididka laga siiyo intravenously. Waxay ayadana saameyn ku leedahay tirxiga weyn adult worm-ka ku leedahay. Laakiin maadaama astaamaha ugu badan calaamadaha ugu badan uu geysanayo macrophyllarida ivermectin-ka waxay ayada dishaa macrophyllarida astaamahaas dhan keeni lahayd oo blindness-ka sabab waxaan dhan sabab u leh. WHO markay noqoto marka 2004 waxay sheegtay 2014 waxay sheegtay 112 milyan oo qof in laga daweeyo cudurkan oo ku nool ilaa iyo 22 wadamo Afrikaan ah. Sidoo kale WHO waxay sheegtay Latin America in wadamada kale ah Colombia, Ecuador iyo Mexico ay ka xoroobeen cudurkan free from onchocerciasis disease. oo macnaha ay sidiisaba cirib tireenba ayagu maraa dawadan ivermectin-ka. Waa haday sawirka aan soo sheegay WHO waxay ku jiraan wadamada Latin America markaas cudurrada halista ku ahaa way ka cirib tirmeen. Sidoo kale WHO waxay sheegtay in program waxay soo bisay African Program for Onchocerciasis Control la dhahay 1995 markaan Afrika u imaano. Ujeedadiisu waxay ahayd in la xakameeyo control lagu suubiyo onchocerciasis. Wuxuuna xirmay programkaas ilaa 2015 ku soo socday. 2015 waxay bilaabeen waxa la dhaho CDTI Community Directed Treatment with Ivermectin oo dawo lagu siiyay dad gaaraya 129 milyan. Marka waxaa la dhahaa Mass Drug Administration MDA loo soo gaabay. Deegaanada cuduradaas laga helo onchocerciasis ee black flag laga helo
dadka degan oo dhan waxaa la wada siinaa ivermectinkaas. weliba WHO waxay ku talisaa soo jeedisaa guideline aan u soo jeedisaa in ivermectinka la siiyo dadka sanadkii hal mar muddo 10 ilaa 15 sano ah. marka dadka deegaankaas ee river blindnesska uu ka jiro onchocerciasiska cases lagu arko dadkaas oo dhan sanadkii hal mar waxaa la wada siinaa ivermectin 10 ilaa 15 sano waa la wada as a guideline si loo ciribtiro onchocerciasis oo dhan. aad iyo aad u mahadsantiin cashir yar oo gaaban onchocerciasis. متقنع. السلام عليكم.